وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواذا برنسس أمران برو هدايا وحسوستان تلفونكي أنا قدمي that's why أقبحني ضمير على السوعد كيس والله خايا سو الميز إن كرا بها وضدا كسوق قاطي بل هل عنق للجري وضدا كسوق قاطي لو عنق وضدا كسوق قاطي لو ما لقى سوق قاطي سدح وضم ما لقى سوق قاطي أفرشن لح وضم ما لقى سوق قاطي ضمير على السوق المهن dad badan meeshan ku jira wareersan yihiin waxa taagan yihiin adigoo gabar Soomaaliyeed difaaciyo mahayo gabar kala caayeen anigu gabar ma caayin gabarna ma aflagaadeeyo mana caayo laakiin afkiisa wixii ka soo baxday gabadh aanu ma hiwaysineysatay ama way ka macsiyeysatay ninkan hadduu isaga ilmihiisa inkiray uu leeyahay wadadan ka soo qaatay 30 second buu dhalnaa 8 second buu dhalnaa hebelay second buu dhalnaa de waxa weeye ilmaha ka yar inuu ku dhago qalad weeye 1000kii haday markay soo galeen codkiisan idin daaraya wadageysanaysan isagoo ilmihiisa xaraan ku tilmaamaya isagoo ku tilmaamaya waynu soo qaadana waynu soo helnay kambeenu yeelnay kii kale isagiyo tiisa haysanin meel iyo mid kale meel u dadeeyayo dad kale inuu aflagaadeeyo JFA wax sameeyo rabaa war soo galo idin daaraya baar cali soo guri islaameed buu xoog ku haystaa gabar islaameed oo la yaqaano aabahay dawladda Soomaaliya ka tirsanaa guri xoog kaga haystaa middle man buu jilayaa dad qof u dhaxeeyo ma aragtay iyo dilaya حاوي لكن عد كيس واقن واندين داريا كل يدين كهدو أنت قدال كسو قلي دون تنا قدال كدا وط أنت هدا جوك تنا هدا وطو وحنا كهر مرة كليب كأه السجو عنو جيس إنكريا أو ضحية عنو جن وسوقاتي أنا كمان دلين ملول بانسي كبلو بانسي كم بانسي ميت كهر وين نقارن هاي ميت لواد بو هدنا له السجن هو يدي سو ديل الربطة وإيه ما طيب وكله العق السي ويقول ده المهس كجسو صار أو qof gabar Soomaali maanta ku imaad ku dhahaysa lacag si ilmahayga ku soo dilo miyuu ku soo dhiiran kartaa bal dhageysta ninkan weyn wuxuu inoogu sheekeen rabo dhageysta daahir calisow caybtaada waan qariyay saaxib oo waan qariyay oo laba waan waa qarin kari waa intaan ka badan adigiiba ilmaha yaraa iskaga daba laalaadinaya adigiiba xaasaskii la qabay kaafa kan la yihiin ma garanaysaa adigiiba wax isku fali kari waaye aniga hadaa maanta dayaxdal nuurshi adigiis haysataan idin soo dhaxgal markaa daciifnimo laakiin dayaxdal nuurshi xaaskiisa inaad afaaraheeda gashad ama gabar Soomaaliyeed oo la qababa labada nin rag way isqaban karaan laakiin in loo sii gudbo xaasaskii loo gudbo adigiyo awlba aadan meel haysanin oo ma garanaysaa diinta Ilaahayna isaga baxay walaal oo diinta Ilaahay isaga tagay burcadnimo iyo mooryaannimo iyo qaa'inimona lagugu soo koriyay oo guri islaameed ilaa hadartan guriyaha leedahay daarood ba iskala guri daaroodkii u dhidideen saaxiib macaan dhididkooda ee guriyaha maxaa kugu dhajiyay gabadha maskiinta calaacalaysa ilaa hadda gurigeeda aadaseen $1 ilmahaadi baad u tuugsanaysaa ilmihii aad garacnimada ku dhashay adiga afkaada aad ka sheegaysid yaad u tuugsanaysaa oo aad leedahay ilmahayga gabadha maskiinta way ka naxday $1 bayna cunugeeda u dirtay cadeynteedana waa tan bal dhageysta Soomaaliyeed assalaamu calaykum bo waa fiicana alxamdulillah $1 wiilka waa u diray kaaha u dhigay اوكي وحواي عبد القادر شريف حسين وحو كنت ألاس صوتي لندن اكسبرس فروم لندن UK ميا ويلكاغا ميا hadda la weydiinaya dhageysta wiilkaaga miyaa wuxuu ku jawaab fiiriya wiilkiga waa saa u kasay ma sha Allah wiil weyn oo lacag loo diri karo ma qabtaa ninkaas aniga asoo yar oo meel lagu tuuray ayaa soo qaatay ma fahamtay asoo markaas soddon daqiiqo ka yar muu tuuray ma aqaan oo meel ka soo baxay oo gurway أنا نير واسيقة هويدي أو بيستي وكورسة أنا كورسين جري بس أنا ما جري أقول ما ديها ما كان قاتي وحاس نيجي أتنى إلى جوات صدق لصانه وإلى جه ما فهمت بس كل كهري كله دراسة كقاتي كان معلوم قديستي والله عطي الكاسة ما كاسة هنجي بنك سلام الله أبو مسكين
hooyadaa waa dhimata ma dhahda marka cunugaasi malaa $1 milyan oo dooro ay gasho waxbarashadiisa iyo noloshiisa faan badana wallaahi faan badana bas ku dadaali jiray ilmihiisa ku dadaali jiray wax kasta u baahan yahay allah buu wax sheegana wax sheegta male asaga marka ya ogaa karaa sagaashan iyo haweeneyda waa ya ogaa karaa laga ogaa karo asi ma ogyahay marka inaad dhal may habartaa waa dhimata maa tiri maya horta waxaan dhaha beriga dagaala isku bedemisaa dhaha ha alla laakiin diiniin in loo sheego waa la dhahee ya diiniin in loo sheego waa mal dhihino hadii loo sheego cooda gelaysa waa la talo cuqudadaa galaysa laakiin hadhow dhaxalkaaga magaaso ku yeesho waxaan arka dhibane hadii laa cunuga hadaa tiraada aniga kuma dhaleen cunuga cooda gelayso cunuga baramaayo cunuga DNA laga qaado inta loo ordo haweeneysa meel laga keeno waxaa cunuga inta dhashay iska tuurta subax loo qoray hadduu cunug ambadaya waa loo sheegi karaa laakiin cunug waa lagu tuura soo yaro markaas dhalaan gulaasha ku bilaabanaysa cunug wicli ma wicli ta dhigi kartaa may waxaa mentally u dhimanaa mentality u dhimanaa maskaxiin u dhimanaa hadii loo sheego hadii layidhahdo hooyadaa lama haayo aabaha lama haayo depression qaadaa waa dhimanaa maskaxdii u ka dhimanaa ibad adiga waxaa sugaynaa marka midka labaad inuu haddana sheego midka labaad balkan wuu soo helay haye u celaa tahay qaaba u sheegay ma aqaani dhahay I don't know hooyadiis oo ka qaatay anigaa korsaday doqdii dhashay inay dishay rabtay okay kan labaad bal naga dhaadhici haddana dameer cala soobo and you know what amazing job as amazing so amazing ilmo badan oo saasa haysta ilmo badan oo cilla ah haysataa ilaahay kula garab galo hadday hooyadii iyo ogaadaanna waxaa dhacday waa la dilaa haye waa dhaari keena dhaano bal ay keen aniga anaa dhahay inta laqaankaa siina anaa ka dhalan leeyahay markaa dhasha aniga sii aka soo qaatay erkiisu ii joogaa maanta you caring wallahi de adi waxaa ku markaa dileeda iska dhalikaana isqabnaha dhulna waa isfirnaan leenahay haddaa dhashaan igu wareegeeda xagga kale iska soco oh my god gabar may dhashay marka niman yahow awlaada soomaaliyeed inaan cuqubo ka galno ma rabno wallaahi bilaahi tallahi dameer cali sow waxaanoo ceeb ah waxaa iskugu soo faagfaagtay markaa gabar la qabo oo xusanad ah oo meel degan oo sharaf leh oo akhlaaq leh oo adaab leh aad ku tilmaantay waxayna u qalmin adigiibaa fadaro ah haddana waxaa idiin daarayaa isagoo guri islaameyd horta gabadhan dhegaysta gabadhan guri baa laga haystaa ninkii guriga ka haystay bay wici doontaa bal waxay ku wada sheekaystaan ila dhegaysta miya daahir miya daahirkan ay hadda la hadlayso maahan daahir calisow waa daahir kale oo guri xoog kaga haysta oo isla calisowgaas una isla yihiin daahirka un isxiji daahir waxaa waaye reerkii guriga siinaay lahaay guriga siinaay baqaarka ku ah oo ku kaysata alaabta reerkii lahaay waaye walaalo xoolaheenna ma iska keensiisid ama aada nooga baxdid sax iska dhiibti hadda muxuu leeyahay guri siinaay a kuleeyahay baqaar ah ma jiro wuu inkiray inuu guri meeshas kulahan wuu inkiray soo maahan clibka dambe soo socdo isagoo qiranaya daahir calisowna qadka uu kula jiro dhegaysan doontaan dhegaysta ma qaldani walaalo waa is og tahay hadda adeerkay soo dishay haddana ma xajkaad ku oraday subxaan allah dhulma wax loo dilaa guriga baqaarka oo ninka isbiima aadan maxay ahayd tolo waan waanta kula jirtay aakhirana aada soo dishay waad og tahay wadafira okay sweden aan isku arkaynahay marka صح lasla joogaa credit remaining 27 pence okay hadda maxaa maqlayseen ninkan inuu diiday inuu siinaay guri kuleeyahay ama baqaar kuleeyahay wuu diiday wuu inkiray gabadhan waxay ka hadlaysan inaana aqoonin buu inkiray soo maaha
let's listen cajalada ku xigta السلام عليكم بو ميا داير ميا okay tana dhageysta alxamdulilah ayaana waxa markaan daahira ninkii gabadhan guriga xoog ugu haystay dameer calasow waa soo qabanaya gabadhan qadka soo gelinaya 3-way conversation allah alaabtan dhageysta ku raaxaysta qadka ku jiro ninkii daahir sheekh Umar ahaa ninka uu saaxiibada oo saqaano sheekaysanay haye wuxuu yiri asna way maqlaa qadka ku jira wuxuu u yiri aniga maamada hadda ka hor asarna joofiido iyo farxay keenay wuxuu dhul oo basiibo u ahay oo siinay ku yilay wuxuu yiri waxaana diyaar u ahay daahiro hadii dhulkii dhul leeyahay xasan qaarso suudiga leeyihiin inaad aniga tashanin oo muujiyo oo qaataan diyaar u ahay dhulkii uma jirigiri hal arko anigu ninka maanta xoolo heestanahay oo baahanin maanta xoolo u baahan ma nin xoolo heesta ahay aniga dhulkooda uma baahni iyo waa deganaanaya waa sii heesanaya bal isgaliya bal dhigta feerkan galiya idinka hadaynu inkirayay dhul Siinaa ku yaal aniga wiliga markan waxa ka hadlaysid ma aqaani Sweden isku arkeena marka la dhahana xaaladda way isbedeshay oo meesha sharciga ka jiro is not Soomaaliya barada dameer calasow meesha isbaarada dhiganay ma aha wadamada sharciga ka jiro hadda wuxuu leeyahay hadii dhulka iyaga yeeshaan waan ogolahay oo dhul aniga aan ku dhasho aniga aan leeyahay oo aan ku soo doontay see cadeynta rabtid maxaa waa intaas ka badan anaa ku dhashay diriska iyo qaan qof walba everybody knows bal dhageysta wuxuu ninkan dhamaysta ama ka suurtooda ka sheeqay dhalay waa runtii soo taasida anaa warka Sheikh Mooryan hidig maaragtay ninkan guriga islaameed haysto oo daahir calasow wakiilka ka dhiganayo dhahay gabadhan ada Yurub isla joogtiin iga qabo oo maaragtay cajaladihii foosho xuma oo gabdhaha Soomaaliya ka qaban jiray ama wixii foosho xuma ka soo qabo oo maaragtay iga rakaatay iyo hadda wuxuu leeyahay sheekh baa idal oo Sheikh Mooryan oo guriga islaameed xaraan ku haysto halkee baa lagu arkay Soomaaliya bal dhageysta idinka yaabi doona qadku ku jira marka oo si fiican oo sharaf leh sheekh isu barta dib u joogiya subhanahu wa ta'ala shay waa isigi shabaah waa ka qadku ku jira marka arinta sida ka dhigan isbarta waa gabadhaas ayaa ayaan xasan naas suweer weey marka arintaas ayaanay ma wax dhibaat ku qabtay ما يعني اسمعك أنا اسمعك هو يدا يسألكتين أوكي هو يسألكتين gabadhan hooyada ninka guriga heesta Soomaaliya isku arkay sheekada idinka ka dhacay markay Soomaaliya isku arkan maamada waa loo hanjabay waxaana loogu hanjabay in la dilayo la tooganayo hadii ay mar dambe guriga safaarihiisa ka hadasho maamadii way iska aamustay sidii bay kaga soo tagtay dib dambe ugu meel laabanin gabadhana marka guriga ka daba mirirtay oo maartay maadaama Soomaaliya ay ka dhalatay dawlad caam ah oo loo wada dhin yahay gabadhana gurigeeda ka sabri la xoolaheeda inay ka sabartana waa qalad gurigeedan iyada iska leh dameer calasow dhaxdhaxaadin buu iska dhigay inuu yahay laakiin wuxuu ku qalqaalinayaa inuu guriga isaga magaciisa ku soo wareejiyo oo kadib ayada ku wareejiyo gabadhana doqon ma ahanta guri iyada ay leedahay sideebay ugu wareejinaysaa daahir calasow magaciisa just use your common sense dhageysta marka waxay ku dhamaatay sheekada hooyaday maalinta arkaysa intay jirtaan jira hadda hooyada markay arkay waa yareed ma weyneen intay jirtaan jiraan ku iraba ku sheegay ya marka ayaani anigaas oo okay ma aha sheekh uu soo sheegay soo okay ma dhulkii wuxuu yiri daahir adiga waa ninka maanta waa ku dhiibtay gacanteeda anigu hadii aan qalabiyas leeyahay qabo hadii dhulkii ay yeeshaan reexasa suweer ku wareeji fatay ka saar hadii salahayn in magac la'aan ah magacayaan leega dheeri waa la wada sheegay qaraabaan nahay sida sharafta badan hanoogu dhamaato uu sheekh waa kan ku jira maqla okay and taas hal xabaan ka dhahaa sidaas oo ku sheego waay sidaas oo ku sheega waay maxaa sidaas oo ku sheegay ninkan dhagihiisii afkiisa miis maqlaan miya soo tuu wax yar ka hor lahaa guri ani aan leeyahay ma jiro mana ku yaalo suuq bacaad wiligeena ma arkin soo asagii lahaa maahan hadda sidee buu ku dhahayaa guriga soo cabirku sheegay cabirku ka hadlay ma maxay gurigan dawlad baa bixisay dawlad baa laga gatay safar loogooyinkoodii baa hadda idin tusanaya idinku inta ku jira halkan bay ka buuxaan cadeymahoodii bay haystaan culimadii meesha deganayd baa joogta hadday daqiiqad ka hor wuxuu dhahayaa anigu waxa ka hadlaysa ma aqaano mana garanayo haddana wuu aqbalayaa bal dhageysta okay and walaalo
waxaan ka wada hadalnay abuukar garweyne la yidhahdo dubay nala joogay adeerkay waa haa haddana inuu dubay ka joogo weli jooga aan u malaynaayo maxamar uu joogaa inuu adeerkaayo ii sheegay waxaan ku yidhi abuukarow anigu waa taqaanaa dad islaameed wixii nama rabo dhulkaana obasiib ahaana loo degano shmitaaladii ahaa dadka dokumentiyada u sheeganaana waa badan yihin nin qof walba horta guri islaameed dhici raba ama dhul uusan lahayn inuu dhacar raba muxuu ugu marsiyoodaa shamiteerow ahay iyo muxuu ugu marsiyoodaa dhulkan obasiibo ahay iyo hebeloobo ahay war waxaas marmarsiyada iska daa obasiibo iyo waxna ka dab wareegaysanad iyo cisbitaal buu ahaa wuxuu ahaaba dad baa leh usoo dhididay xoolahoodii kusoo gatay warniyo dadkan bini-aadankan damiirkooda intuu dhintay waxa adiga shaqaysasid maad ku noolaataan waxay ahayd maxaa idinka galay tuuganimo iyo ahbalnimo iyo beliliqo iyo xaaraan haddii lagugu soo koriyo xaaraankaas caloosha weyn laho meesha fadhiad noqonaysaan bal dhagaysta ninkan weyn wuxuu ka hadlay isagan dukumeentiyadeeda asalkeediina waa la ogaayo siyaad bare intuu joogay anta gabadhiisu geeska u sheegtay oo dad badan oo kalena u cabiray cadowgaas waxaa la soo saaray wareegta dhahaysa waa laga noqday sideeda iyadoo shimitaaro waa dagaalka dhacay oo derbigii shimitaarada ku wareegtay oo qabrada sida ugu yaalaan meesha dadaa kala boobaayay dadkii kala boobaayay qolo ka mid a cabdi macalin oo haddaba meesha joogta anuu ka gatay meesha ii oodan kadib waxaan is aragnay warkaas ay soo gaaray abuukar garweynan arkay iyo gabar inay walaashaa tahay aan u malaynayo la yidhaahdo wilson inay hadda joogtay garan ma kala dhaan waxaa ku yidhi dhulka ku leedihiin documenti haddaa haysataan nin kaloo maxamed la yidhaahdo ii sheeg maxaa caddaha asna wareeriyo meesha agteeda degan iyo kuwo kaloo iyaguna cabdi macalina alkaalaya documentiga hayseen ii keena ani idinkaa maraan la macaamil ku iska reebeen documentiga haysin ii keena goormay soo galaysaa meesha guriga hadda ninkan uu ku doodayo uu dadka islaameed oo guriga lahaa dokumentigooda weydinayo asaga muxuu haystaa asaga guriguu degan yahay documenti miyuu u haystaa dadkan guriga iskale markuu dhahayo documenti ii keena bal adiga degan ee sheeganaya qalbigaadana waad og tahay inaadan guriga lahayn yaa documenti ku weydiiyey mase dadka lahaaba documenti weydinaysaa bililiqada iyo xaaraanta iyo guryaha islaameed waa laga fiican yahay aynu dhageysano jawaabta gabadha ee bixiso abdi john markay ii timid gabrinta ii keentay john filo ninka la yidhaahdo afrax oo iyadana shaqeyneen aan gurigooda sugu nimid hooda noosana wajii kartaa maxaa ku yidhi ninkii maxaa caddana waa loo yeeray odag xagga sabriyahay waa loo yeeray oo guryaha meesha kulay kalaashada oo dhulka sheeganaya dukuminta ay saarahay waxaa kaloo loo yeeray qoladii kale cabdi macalin iyadoo la wada fadhiyo warkii waxaa furay john wuxuu ku yidhi haweenaa wasaasha usoo jeediyey dhulka sidaa ku leedahay sheeg uu yidhi waxay tiri dhulkaas annaga wadaadkaas carruurta aan u dhalay shirkaduu lahaa magaca shirkada maskaxda kuma haayo aa ku qoray shirkadaasaana lahayd adagiina waa dhintay saasa annaga dhulka ku lahayn waxaana noo yaqiinay nin goofla ahaa oo magacaas wata ninka la yihahdo xasan sibriye oo mahacada ahaa uuna fadhiya isaga warkii markay dhamaysatay xasan sibriya warkii galay isna dokumentka ula soo baxay wuxuu waxna kama gadin naagtaan waxay sheegeen wax kama jiraan ana goofla maahay dhulka laftiga waa laga cabiray halkaas wara ka bixiyey buuqaa meeshii ka dhacay hooyo waa tagtay maalintaas horta inay suuqeen dambey nagarasi kuma soo noqon aniga waxaan barimiyey nin iyo mid jira oo calas oo la yidhaahdo hadda weli waa noolyahay oo waa islaam iyo nin calas oo la yidhahda waxaa ku yidhi waxaa suma dagaali waxaa ku yidhi dhul cidda yeelata saddex liinaan aan kala macaamilaa dowladda inta yimaado hala saar cabir anigu idin dhihi maayo waa basiibe saddexdoodii oo maalintaas ay ugu dambeysay midkoodna ima soo noqon dhulka horta walaalay waa dhulkaas si lagu sheegay iyo haddii lagu sheego xumeeyada sida u ahaana haddeer ninkii ahaa muungaab isagoo dhan kulligiis taasaa horta documentiga lagu haystaa uu yahay sidaa lagu deganaana taasay ahayd haddeertaana siduu daahir kuu sheegay haddii dhulkaas documenti ha haysataan documenti hala keeno hala cabiro hadduu meeshaan deganaan documentiga ka sheekeynaya maxaa waay gurigan qofka lahaayaaba kula hadlaaye adiga deganna documenti ma haysatid iqbililiqaa kusoo degtay iyo xaaraan iyo tuuganimo iyo qaa'inimo iyo ahbalnimo kusoo degtay ninkan documentigu gabadhaan weydinaya la yaabanahayba war waa hadda mithaal ahaan idin tusinaya inta maanka gaaban inta caqliga le way fahantayba sheekadan inta laakiin caqliga leh gurigan anigoo degan asagoo ebran soo degay qofle ma aqaan waxle ma aqaan iska soo dhex degay
qof baa yimid dhahay guriga aniga iskale mahayo gurigayga iga bax ma waxaan xaq u leeyahay inaan weydiiyo documentiga guriga keen ma anaa iskale waay aan u weydiinayaa documentiga guriga maxaa iga galay midda kale documentiga ay gabadha tusisay halkan ay ka buuxaanba wayba ku wada jiraanba arrinkanna waxaa loo bandhigayaa thaabit waa lala wada hadlay gabadhaasna si degdega gurigooda ku helaysaa dameer calisow saaxib businesskaada wuu soo afjarmay saaxib cajalada ku xigta waxay noqon doontaa wacilnimadii ay idinkaga sheegay maxamed garac wacilnimadiisana halkan lagu cadeeyay anugu hadaaya waa idin sheegay teleefonka iga damaa idin dhahay teleefonkaas soo jaaj gareystay bal horta tan dhameysano maxamed wacil arrintiisana waa galeena asagana okay dhulkaasayti dhul sharciyeysan waaye dhageysta gabadhan say uga jawaabs ilaaha idinku dhaariyay Soomaaliya dulumka iyo gardarada ma fiicno gabadhan hadalkeeda dhageysta oo dhuuxa oo si fiican u maqla superlogadiisa haynaa oo complete ah xitaa dadkii siyaad bara ku wareegay waqtigii aabba uu ku soo wareegay hooyo ku sii wareejiyay superlogadii Cumar Tugunba warqadii oo superlogada looga soo cadeeyay mideeda kaleeto 24 waaye دربيا عاب كوريجي قل رجح مسقولة كدسنا جنجالا نصارنا أنا كان كل هذا السيد جرهان إيمت هذا كور وبصيبا نقول اسمه نقولين 91 كي هذانا عاب يدح كياني وحنا دقنا القلم مورياني gabadhu raba marka inuu hadalka ku celiyo waayo gabadhan cadeen bay haysataa warka sheegaysa waxba ka jira run weeye si cad bay u sheegaysaa gurigeedu si qayaxan bay u sheegaysaa wuu ku celinayaa saas ma dhihi karno kuleeyahay dhageyso marka dameer calisow wuxuu ku jawaabo saas dhimayna anagu hadalkaas wanaagsan raacayna waxa weeye may sida ay wax u jiraan may sida ay wax u jiraan waa moogtahay marka warqadii daahir calisow wuu soo booday gabadhi ninkan wuxuu taagnaa sabar loogada hadlay keeno dameer calisow ba soo booday wuxuu taagan yahay geometry la gelina geometry waxa la geliyaa guri cusub oo la gadanayo fiiriya meeshan confusion ka bilaabay ninkan uu gabadhi inuu ka jahwareeriyo isku day waa meeshan geometry la gelinaya geometry guri cusub oo aan la gadayn oo ay dawladda bixinaysa la geliyaa dadka wuxuu u maleeyaa dham iska xiran war we finish university jaamacad ba ka soo baxnay brother dadka daqmo ma dhammaan waxa la soo wada bartay Soomaali hadda ninka ugu liita high school buu soo dhameeyay geometry macnihiisa waa guri cusub dhul bixin ah la cabirayo cabirkaasna lagu siinayo weeyaan gurigan guri cusub maahan why geometry loo gelinayaa intaas raba inaan weydiiyo marka dhulkaas sax waayo oo dhulkaas Daarshi Umar uu degan yahay iyo sabab loogahan waa isleeyahay dil yiraahdo الله رسول بهذه أنا بقى فرت ذيك السارة أما ذيك الجذنية أما ذيك الضحية هذه اللي يقول كان أبصيبه واي أو جو سبحان كان وطان غير كان وعمل جهاد كلا ودليل هذا جهاد عسكري وياي الأدينة أوكي ومارك أنا كان إنجنير وقدم بيكون كدول ريقاتي last August ويدحقي تعال سوى وفي يعني يوم كذا تعال سوى why is it so hard ninkan maxay ugu adag tahay guriga islaameed inuu isaga baxo oo xaraan jecla guriga islaam inuu dhaho akhyaaray inta idinka deganaana miyaa afiseen masakiraad iga rabtaan haddii aadan wadanka imaanayninna ma idiin sii deganaada ilaan dan baa ay haysa meel kale aada ma haysto there's so many ways qofka loola hadli karo gabadhan laga yaabay inayna guriga ka saari lahayn ninkan ay usii dayn lahaydba ilaan waa nin daruuf hayso dan hayso tabar hayso aqoon ku filan aana lahayn xooggiisa si loo cuno aanan aqoonin weeye inuu ku madax adaygo guriga islaameed oo uu ka bixi kari waayo oo uu ku madax adaygo oo ku dagaalamo oo geometry la geliyo oo hooyadii gurigan lahayd wadankii laga buriyo oo la dhaho waa lagu dilaya haddaad ka hadashid bal taas Soomaali Maxamed baa ka warrami doonta geometry la yaqaano oo xamar kala saar dhulka oo saxiix ahaana soo kala cadaynayo warcad waay warqadana marka adigan ku tusinaa habartayna beecay u rabtaa marka sheekh daahirna oo diray waa ku kalsoonaa waliba hooya may wax dhiba ma labo hooya haddii xamar joogto hooya ha u dirto war ha u dirin war maamad yaa laga dilin
على كل حال أنا يعني وراي هرت درا لا قلت أنا واحد ما نرها معي اوكي رالي اهو انت عنكو افلقاتي ظاهر dulmay gabadhan laga galaya marka fiiriya iyadoo xoolo ka maqan yihiin guri ka maqan yihiin dameer calas oo lacag ka daldalanayo oo ilmihiisa xaaraanta ah ka biilanayo uu leeyahay gurigan ku soo dhicinaya iyo hadana iyadii si raali gelinaysa qofkii wax ka dhacay subhanallah alsoon waa maqlaa islaamada dilana ilaahay ma baahin waxaan haystaa namaysanayaan weyn oo ruwaayaan ka tagaayo nin diin la nacayo nin caamiyo diin hadda leedahay guriga ma dhiibtid war guri war ilaahay amarkiis war diintan la sheeganayo war diinta dadka haystaa ay xaaraan ma cunaan oo guri xaaraan ma dagaan oo ilmahooda isbaaro kuma biilaan oo isbaaro kuma kordhiyaan oo waa maxay diintan la sheeganayo xoolihii islaameedna xoog lagu haysta war ilaahay amarkiis badana war diinta islaamka ma gadaal ma laga soo bilaabay sida u naqaanay maahan ma si kala loogu dhaqmaa diinta ma la kala wareejiyay yaab dardara iska shaqaysanaya maahay walaal way xaq waa leeyihiin oo aniga ku jira diinkiina ku jira kama duwan hadii lagu jirina dadka helaan nahay a'uudu billahi tan waa dun halkan joogtay adeerka ku kala weyn waa isnaqaana hada walaal kartaa beer jireec way waxa beer jireec way asna qaana iyo iyo yaano isarlagaadeen hadii aniga xaqina waniga idin jiro waa joogina ku jira kama duwan ya lagu warxamay adeerka ما انت اللي ورحمايا وليبا او أو كنا معطي أو شو سوى جليا تومترين جليا على أي سوكر عدي أرندا سوى هذا ما يسألني كشيء هذا وأوكينا الجميع عديد ومدحوية هاي وكان شيء كيسني وحوي وفلو هو وهدان ترى أصوات لورها فتك السعراء وأنا أباني وحاس يجينا قفوا يسقطوا كرد فيها ودار أهل السوق السوقاوي ها مبتع waxaan rabaa kaan ayaan habeen dawad waxa ay yimid in la yiraahdo bunow okay Soomaaliya oo u jeedaan guryaha islaameed xaraan buu ku haystaa qabiil oon ahayn buu sheeganaya war habar gidir waa gob dhashay weeyaan saaxib meel walba businesska Soomaaliya maanta iyada iska leh Nairobi wax kaga badan habar gidir ma jiraan dadkan meesha ku jira qabiilka qalbiga ka degay halka wada buuxdo uqdada iska saara garacaas idinka maada dhalin habar gidir ma ahan wuu sheeganaya wuu idin sheeganaya magaciinu dil rabaa nin walbo Soomaali maanta rabo inuu maaragtay loo arko coolga inuu habar gidir sheegto waa qalad habar gidir dad sharaf leh waa ka dhashay haddana waxa idin daaraya codkii ka ku xigay marka wuxuu noqon doonaa isagoo booteenaya marka way waa bariis waxay la xarar ku brief gareeyo ani inta information ka haysto ayaa rabaa inuu brief gareeyo wixii qadna waxa la waa qalad wixii sax ah waa sax wuxuu telefoonka ka oo digay shay isma naqaana tiri qaabsan sawir isma naqaana kuwa waa idin gadaal idin kaga daaraya ساتاي maxaa jirba hadda marka wuxuu ka sheekeynayaa tuugta Soomaaliya joogto oo dhan buu ka sheekeynayaa daawada dhageysta inta qof uu la hadlay oo direct ula contact gareysa dameer calasow iyo halkan ku kashifaya dawladda Soomaaliya waxa idin sheegaya usqug oo dhan inuu ka buuxa idin tusinaya bal ninka dhareerka ah ee aanan meel la haysanin raggan uu soo wacay ee uu ku maaragtay ka dhaadhicinay qabiil iyo qurun iyo waxaan loo joogin inay ku taageeraan bal dhagay isaga iska shifay daahir cali soo joog waa laga kari waay war soo joogniyo kor iyo hoosba kula hadalnay hadda waxay maraysaa xaasaskii la qabay xalaasha ahaa iyo ubadkii xalaasha ahaa inaad af lagaadeysid bay maraysaa bal dayax dal nuur shakaligii ku ekaatay oo ummadda iyo xaasaskooda iyo carruurtooda iska daysa diidi kari weysay Soomahan qof ceeb aanu lahayn dusha sokamada saaran ceebtaada maanta ku raaxayso walaal macaan raaxayso laakiin ayaan xasan taasay leedahay maxamed ayaa loo dhawo Ahmed Daaci intaasuu leeyahay isugu dhawaanina Ahmed Daaci intaasuu leeyahay ha iskugu dhawaanina waa maqlaysaan Soomaa yaa yaqaan Ahmed Daaci who knows Ahmed Daaci dhageysto idin kugu soo celinaya dhageysta
saaxiib farmaajo indhihiisa inuu kala furo madaxweynaha iyo waxaan uu ka ag shaqeynay usgugiinta kala jirin ee dhamaadka ah ee laba wajiilayaasha khiyaanolayaasha ah ninkan baa ka shifay dhageysta taasay leedahay yaa loo dhawo axmed daaci intaasuu leeyahay isugu dhawaanine daahir calas intaasuu leeyahay yaa loo dhawaane dhulkii maalintan dalaalkii ay soo cadaalin hadduu waxaa lahay garaashka lacag waa gooyo badanaa la ma fahamta ya hadduu garaashka aan lahay maya xaba ma lahayn ya waxa wax gooyey dhulkan adinka annaga aan yeelanay ayaa saxaabiri ma ah mogta oo laamiga soo saara kaas maa lacag badan ay dheheen gabadhii isku dayayaan inay manipulation ku sameeyaan dhul iyada ee lahayn oo aan sabarloog loo haynin oo cid kale laga soo dhacay in ayada lagu qaameeyo oo laleeyahay dhulkaada lagaa haysto dhulkaana ka qaalisana dhulkaan qaado waa kaarta talyaani waa awow maafi inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun kanaa fiican dheheen kii hore kan dhulkan garaashka waxay dhaxal muguulahay dhul la kala bedelaya maartan dhul la kala bedelaya dhageysta idinkugu soo celinaa dhageysta dhulkaadi kanaa ka fiican kan qaado waa dhul la kala bedelaya dhulka baabuur ma noqday mise mobile la kala bedelanayo noqday dhageysta lacag badan ay dheheen kanaa fiican dheheen kii hore kan dhulkan garaashka waxay dhaxal muguulahay soddon kun waalaya ilaahe hooyaa ku qora ya jibiil markad ku jirto dhulkaas dalaalinta loo diray maanta 3 dalaan oo maanta la diray oo axmed daaci diray oo aniga diray oo wiil kale oo diray waxay dhulkaas 55 waay axmed daaci iyo dameer calisow waxa ka dhaxay idinkan igal raba Soomaaliya maxamed laga raba axmed daacigan dawladda ku jira iyo ninkan dameer calisow connectionka ka dhaxeeya soo saara wallah marka waxaa haykaa dadka waa idin uweli karaa daalatiin adinka la waagelayna haytaa 55 waa boqolaalaab la sheegaya hadda boqolaada laga rabaa inaad ku keentaa dhulka waa soo xoreeyay ada laga rabaa inaad keento garba okay ninka diyaar ka yahay miya soo jiro helisin 3 bilo madaxiina xawartay oo weli marka ya okay warkaasi weli meyna waxaa laga rabaa taqaanaa ada laga rabaa inaad wax ku xirto aniga hor dhawa iwaash gabadhiyo marka hadda shaxaad ku bilaabo dhulka waa kugu soo dhici wax ka jira male waxaan ramadaankii bay ahayd oo maleynaya goorta dhulkan soo bilowda sheekadiisa ilaa hadda gabadhii wax loo soo celiyey male adaa lagaa rabaa buu leeyahay inaad isku laabatid marka oo hirig kala keentid hirigtan kale waa laga qaadaa gabadhan masaakiinta gurina ma haysato dameer calisow dhacla gaajada tahay ku yaal gaajo kala jiro saamiyahay intaasay farto cala amilada yaa la dhawaan intaas waxaana ayaa la isugu dhawaanin ya aad sheekada konton kusoo aruurtay de 50,000 hadda 50 ya waa 50 okay oo weliba soo dhisan waa dhisan yahay maho jinkada la miyaa wax ka dhisanbo waa la fiiqday booliyo dhan ay jinkad ka dhisaan mugtahay guriga saasay u ogeed jinkadaa laga dhisay waxaasoo ka adkaaya dhibaataas laakiin lacagta noo gulmay aan $200 aan damaacinay okay may ninkaa ku noqonaa dhahay adigo hadee dhulku maanta waa liixay wixii hadda ka dambeeye ya inaha sacdaana wareejihaye ya inaha sacda waa la hadle adana wareejisa ku dhaaf okay marka ad waxaa laga rabaa inaa gabaa dhulka saa ninkaan anigu weli kuma dayo ninkaan lama hadlin weli laakiin okay may wiilkan maxamed seef aan waca maxamed seef ma waxa wici weysay miskiin gabadhan waa la jahwareeri jahwareer
ma ku yaray booska 200 joog hadda xalii 30 booska 200 joog 30 subhanallah waa ka gadana dhacayd u dheh marka ka gadana toban qaado waa feerina asaan ku noqona bal maxamed seef ku aan waxa ii sheegay lacagta badane maxamed seef wali weydiin aniga rag madaxa ka bani ma sheegay ruuxaas wuxuu ku yimaado asma dhaha maxamed seef ma ku dhahay hadda dhageysta marka meeluhu wuxuu idiin sheegayaa waran ninkan habar gidirta sheegana wallahi kan habar gidir maaha wallahi inuu habar gidir yahay nacladan saan u dhaqmayana dhaqankan habar gidir ku noqdo wallahi dhageysta markaan dhageysta maanta maxamed carwa ku xigo garaciya ku xigo maanta sheegana ninka waa nin al-shabaab oo ahlu sunna wal khura ma fahmi ma sha Allah aabo waa ku maqlaa jamiila qad kugu jirta culummadii waxaa waay macluumaad macluumaad sameeyay ay ka dhamu waay oo uu sheegay sunnada ayaa jirta fahmta haye waan naxay asoo kale markii waan naxay waxa uu sheegay يا بوتي فاندم وانا حيقولها رجعوا دار عسو هالبوس مع طلب بوس وأنا عليها فيها حمرك فيها ضرر ما فهمت هي فيها صدق مرة وقفك الواحد ويستمر جومتر قشو جومتر مدح بنان قشو صار بريو اللي نيم وصل كاسري وكاسا صون قشو waxay hada Ahmed ayaa waay wuxuu bariga joominta ku keenaa haye lacagtu iga rabay soo sheegay joominta kan dhahay soo looga ku soo gilna email haye fiirso fahamtay ninka jiraayna maanta uu wiri ninkii ahay Ahmed ayaa way soo galabta wuxuu yiri daaro hada wada soo dagaayay gabdhaha iga qanay ani meelan igana oo toban wakii haday diiday odaygii diiday dhahay gurigaas ma aqaani aniga cajaladii ko idin daaray hadaa xasuusataan dhahay wiligeey ma arkin dameer calasow hadda wuxuu ku leeyahay way iga taalaaniyo meel aadama aqaanay familka meel yar ka deganahay igala hadalo oo dhahay marka haday uu diiday ka soo maahan hadda muxuu u leeyahay jiqa igu tahay zakiika igu tahay iga wareejiya maxaa leedahay ayaa guriga deganahay nacra waxa lacag qaato idacay hadii Allah ina dikrabo lacagan bixiha marka ayna xoogay abtixina hawri oo taxa gashay oo jaaf halay dar meeshii dadka aan la yiraahdo dacwadeyda maxaa ku isuwigan meesha dadka wuri weyso waa ka jibeen ku xabadan kaas abo in laga bixiyo waaye koos gurigii waxa gabadhan daacadnimadeeda la yaab ninkan waxay u aaminaysaa maxaa ka galkaas in laga bixiyo waa kaas insaan la yeelo waa kaas war lugooyid ugu weyn kan inuu yahay gadaalay ka fahmi doontaa miskiinta iyadana mar laakiin 100,000 laga sii marayo waa 100,000 keen waa ku keenayna si loogu haygo si looga qaado walaashay wallahi ina qoslo ma ahayn laakiin hal mar haduu ka qaado laba mar ka qaado ninka ma ku sixray $100,000 ma sixir buu kaaga qaaday suuqaaga qaada ilaa hadda iga dhaadhicila 2,000 keen 3,000 keel garacan u dir garac kale Hargeysa ii joogo u dir hebelo u dir kan u dir kii kale u dir subhanaka miska wade baash waay ilmaha kala barkood ay ku dhasheen ninkan oo adee ahna been ma ku sheegay teleefanadiisa anima ku seenino intaan waxaan ku iri xamaraan u soo socdaa mid hodan ku yaalan ku siina kan Madiina noo banay soo galay dameerkii soo galay dameer calasow oo ku jirta saaxib meeqan ku lahaa geela yaa ciinka ka celiyo freedom of speech bay baratay freedom of speech bay baratay dameer calasow saaxib guryaha islaameed ee xaaraanta ah lagu soo صاحب والله حريست والله وحيابها كلام كاهية صاحب هذا أدو دينتك بحيان هيا أقسم بالله أدو دينتك بحيان هيا وأصلا نمد أقفيان هيا وأصلا نمد كتفيان هيا والله مسي أرسيدا وكاس دمير على صوبه أرسيدا ده وكاس أدو دينتك بحيا سيدا ده وكاس أر سيدا مهايو ده عجلة نمرقاتي من قندونتا أدا أفكاك كده سيدا سوقر
dameer cala soobo ilmaha islaameed laga horta isku raaxayso codkaada ku raaxayso misma qashaa yahay ama meel kale ku yaala dadku aaga agaarka ama ku yaala sidoo ogaateen halkaas misma qashaa yaa xaqiijiyay kilometerka gariyo yahay waxaan rabaa in lagu hubisaan inta qarashana galay ugu wada kilometerka garaashu هاد aabaa ku wareeji derbiga aabaa ku wareeji dameer calisow in meeshaan maxaa umalaysaa inayd ku dhamaanaysa hawshaana awowa sheekadaadii laga daba teg saaxib aniga saanaan ah aniga kanaan ah aniga waryaa xaasaska lama ahay doqonkaa tahay was xaasaska islaameed afaarahooda lama galo intaanoo fadeexad ah iyo intaanoo ceeb ah goormaynu kaa qarinayna mataqaana oo aynu lahayniyo islaamka lama ceebeeye iska da ilaahay baa ceebtiisa asturi doona adigana mar unbaa ilaahay ceebtaada asturaya mar waad ka dartay laakiin ka darey bay noqotay xaaladaada mar waad isku xaartay markaad gabadha islaameed afka la gashay oo ummadii afka la gashay oo ilmo xalaal ah aad adigoo xaaraan haysta oo aadan aqooninba si xalaal loo dhalo xalaal ereyga xalaal baa dhibaya ninkan waaba antahay xalaal dameer cala soobo antahay xalaal baaba tahay adiga xalaashaaba ku dhibtoba guri waa xaaraan isbaaro waa xaaraan ilmihii waa xaaraan kale meeshuu hadda joogo waa xaaraan war adiga goor aakhir naarta dadka caadiga la geliya inaad geli weysa ka baqaa wallah abijahl iyo naarta la geliya mid kasii xun in lagu geliya ka baqa aday because the day aqaan gaartay ilaa hadda xaaraan baad ku dhex jirtaa xaaraan goormay marka jannada carafteeda iska daayay arono adi mid lagu gelin doono kitaabka inay ku olin baa ka baqayaaba naarta adiga lagu gelin doono jahanamada adiga lagu diyaariyey jahanamo kuwan salaada ka tagay iyo oo maaragtay faasiqa noqday oo ilaahay ku caasiyaha laakiin adiga caasinimadaada xargahe goosatay caasinimadaada dulinimaad ku darsatay munaafiqadnimaad ku darsatay shaydaannimaad ku darsatay naartaada kitaabka qur-aanka amayba ku olinba subxaan allah wallaahi billahi tallah waa kuu baqayaa dameer calisow dayaxdal nuurshe dhegaha ka garaac saaxib iska dhici laakiin xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo awlaadiisa iyo gabar walbo soomaaliyeed oo la qabo afka kale lama geli kartid ma cayn kartid waa daciifnimada waxyaabaha daciifnimada ah weeyaan waxyaabaha daciifnimada ah ayay ka mid tahay cunug dhan nin uu cunug u dhashay farxad ku jira reereen ku jira seed ugu soo afdhiiran karta inaa xaaskiisa aysid war isku raaxaysaniyo adiga isdhegayso shirkad taamo waa wareejisnaay adigoo calaacalaya oo gabadhan dhahayo guriga aniga magaceyga kusoo qor kadib baan adiga kugu soo wareejinaya sida caruurtii 100 kunaa gabadhan ka cuntayna waa mid inta kuu marila oo caloosha 2 kiintaale kaa soo saartay indhahana ku tirtay saaxib foolxumadaada laga nasan kari ilaahay naga badbaniyo alxamdulillahi rabbil caalamiin Soomaaliya ilaahay u mahad celiyo ilaahay dameer calisow idinka dhigin ilaahaygi waxaas idinka dhigin iyo maahuurkaas ilaahaygi idinka dhigin alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhaha fadeexad buu ku dhex jiraa diinta islaamka isagoo ka baxaya halkan ku jirta waka ilaan diinta qofka caaya islaamnimo ma haysto islaamnimada wuu ka tagay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey in lagu dhaqmo lagu kala dambeeyo la karaameeyo laakiin mar hadduuba diintii u gafayo ninkan waa waalan yahay bay baratay waa waalan yahay waqtimo waalida hadda toos u waalan dhagayso waryaa isdhagayso haddii joomata la geliyo oo dhulkaan iyo sabarlooga isma laha ayla waa dhamaatay waa hadal naga dhaca moogta hadalka kaa dhaca haddii joomata lagu diro ku yaal dhulkiina maaha dhulkiina halkaas kale ku yaala haduu ku yaha maya habarta hadda ku wacaa koo 2 nin injineer ee geometrikii injineerka ma isku mid ah injineerka waa joomata lagu sheegaha tartiib talyaani mi aniga marka moogtahay marka ii sheeg injineera $1 iga qaatay goormaan ceebtaada astureen waana joogaa hadda madaxa soo qabsanaa haddii oo maxay ahaytoode oo islahaan waaye $1 ka rabaa siinaayo gurigaas uu dhex jooji gabadha maskiinta walaashan $1 waxay ahayn ma dirtaba iyada kuna ugu yar waxay dirtay alaabtii oo kuna u weyn kuna u yar kun leen laga dirin waaya gabadhan leen u soo geliyay wixii asaga ahay dhan oo leen u soo geliyay sidiisoo kale wixii ahaa leen ku jiraan kuna soo yacday taagan yihiin kaalaya weliba video waan ka soo duubay haddan hooyaa tilmaamayso horta injineerada xamar hal injineer ugu fiicansan maqlay daacina waa soo sheegi dooyaa kuwa oo sabar notaariska waxa ugu fiican hal notaaris oo ilmaha sacdalaya ma fahamta kaas leeba aabahe dhulkiisa dhan wada wareejiyey moogid aabihiisa wareejiyey
amiina hadda joogo laakiin aabihiisaa wareejiyey waa abtigay ninkaas arkaysid aniga waxay dhashay Faaduma ay dhashay markaas ninkaas waa abtigay oo amiin waxaan soo arkee agoostii hadda la soo dhaafee xasan qaasin ma taqaande oo fartuucal amiir ma taqaande gabadha maskiinta ayaa marka musbay qaataan joogmitarada mooga ma layga qaatay in lay dhex joojiyo ku yiro waa ka la yiri fartaa laygu fiiqo daahiro waxaa yaalo superlogadiyaa taal koodhe superlogiyaa yaalo may warqadii cumar tugun baa haynaa superlogiyaa haynaa ya may hadda waxaa hayaa warqadii oo superloga tii cumar tugumbe naqshadii nootaayihii lagu wareejiyey amiin aabihiisaa laga wareejiyey abtaamiina dhaa aniga intaasaa iskor saara inta la tago meel oo super cafe ayaa waxaa la sameeyaa scan la soo wada geliyaa waa la soo wada scan gareeyaa marka scan gareyso meeshaas ka soo scan gareyso waa ka tirtiraysaa may kulli teleefankeygan ku wada sawiraa ani scan gurigu ii yaalaa laakiin teleefankeyga ku sawiraa emailkeyga ku dira emailkeyga marka emailkaaga kaga soo diri karaa hadda heli kartaa haddii emailkaaga ii soo dhigtid fiberka ama anywhere raalin ahow waxa waaye telefoonka sawir hadda ma rabo anigu sawir waa sheeka ciyaarsiiyo sawir ma rabo waxaa rabaa la soo iskaan gareeyo markaasuu si uu qadkiisu u dhexyaa inuu nadiif u noqdo inuu ka dhaco haddaa ka shakida ii sheeg because scanner picture al dhahamaho scan laakiin musawira hadda si nadiif buu sawira waxay ma soo qabanaa hadda ka shakiso waa soo waxaanayti waxa soo dirto wax ma ee ku celi dheh dameer aliso hadda ku iskaan gareena ala alim brother this is you saaxib saas adigoo u calaalay gabadha maskiinta xoolaheeda ka dhacay emailka ku soo dhiga warqadaha waa ku soo waxaan ku soo diraa maxay qofkan email ma qabtan lee waayo qofkan lee fiber ma qabta maxay numberka iga soo fiber maamiya ayaa sawir ani waa qabaa email fiber maxaa kii oo sawir kugu soo dhigi waayo beriga sawir kugu soo diray aliyo awkaas maxaan ka ogahay hadda imigi soo wicin waaba u jeedi miskoolkaaga waaba karaabe ma soo galaayo dambeer kala jirin dheh oo kuu nasteexeynaya marka weliga iyo allaha waxaa ku xigo maxamed carab garaci baa ku xiga garaci adeerkiis isagoo adeerkiis baqadka soo gelinaynaa aabihiis la dhashay markaa leeyahay adeerkiis aabihiis la dhashay contradiction bay sameynaysaa garac adeer ma yeesho abti unbuu yeeshaa soo maaha laakiin garacan aabihiis xaaraan buu ku dhalay waa la yaqaanaa aabihiis laakiin everybody knows aabihiis waa la wada yaqaanaa everyone knows aabihiis regardless of wax kale oo maaragtay oo iska dhaadhiciyaan laakiin dad baa moodo marka inaan aniga hooyo Soomaaliyeed haddana u gafayo uma gafayo cunuga markuu garac caadi yahay adigoo hooyada ula jeedin baa cunuga wuxuu yahay inaad tilmaantid niyo runta anigu kama gamban karo aakhirka waxaan ka baqayaa Soomaalidan runta san ugu wado inay sas iga qaadaan oo iga kala cararaan oo iga sasaan oo iga didaan war qofka markuuna aabba lahayn oo ama xaaraan lagu dhalay meher uu ku dhalanin bal maxaad ugu wacdaan magac siiya idinka wakaas haddaan idin daarayaa adeerkii aabihii la dhashay yaa ku jira idinkan idin daarayaa bal idinka magac u bixiya maxaan dhahaa waayahay waxaan dhihi lahaa ii sheega walaal macaan oo tell me marka dameer calisow next time tii haddana wakaas cardaar dhowkaas adigoo dhahaya khamri xashiish balaayo baas ku dhex jira fisqi ku dhex jira video lagaa duubay baa halkan ku jira right now halkan buu yaalaa video fawaaxisha gabdhaha ka duubi jirta mid ka mid unbaa kaasoo duubtay adigana waka halkan buu ku jiraa wallaahi oo bilaahi waxaa u naxayaa maqrib baa la taagan yahay uqsim billah waxaa u naxayaa indhaha ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta indhahooda wax xun inay arkaan baan diidayaa daahir calisow
ummadda Soomaaliyeed indhahooda wax xun inaan tuso laga yaabay inay caruur daawanayso laga yaabay inay dumar daawanayaan inay laga yaabay inay dad waaweyn daawanayaan indhahoodan ka qarinayaa fawaaxishtan meesha ka socota waxyaabahan aad ku kacaysid haddii aan hal mar ku aadiyo wallaahi sumcadaada iska daaya tayada wax u dhimaysa waayo waxaan meeshan ku jira iyo gabdhaha masaakiinta ah ee aad saa u galaysid oo aad nolosha ka wada ridaysid ee lagaa soo duubayo daahir nin weyn baa tahay wax fiican maaha wax ku wanaagsanna maaha tan labaad tan waa kaa daynayaa qaladka labaad ee aad geshid buu u noqonayaa ciqaabteeda horta maanta ciqaabtii ahayd tan baa kugu filan guryaha islaameed ee aad xaaraanta ku haysatid iyo adiga iyo maaragtay cunugii ninka hadday sheegaya magaciisa muxuu ahaa kii dowladda ku jiray magaciisa muxuu ahaa iyo daahir calisow maxaa ka dhexeeya that's one thing aan horta inaan ogaado wey taa waa inaan ogaado dowladdan annaka waynu taageernaa waynu sabood gareennaa cirkaynu gelinaa wixii laqdabo ku wadana saanoo kalena bannaanka u keennaa waa soo bannaankaa soo dhignaa marka waxaa rabnaa inaan ogaano adiga iyo hebelowgaas aad sheegaysay waxa idinka dhexeeya kow midda labaad qofka haddaad is haysaan asaga isku dhammaada laakiin reerkiisa iyo faamiligiisa iyo afaarihiisa lama galo weliba adigoo garacyo kuu joogaan oo dhahaya dhowr caruuro makugu celiya horta ma soo dahay makugu celiyaa waryaa ma dhegaysanaysa adigoo ilmahaada inkiray makugu celiyaa ma rabtaa inaad dhegaysatid waryaa saqajaanow inaad dhegaysatid ma rabtaa nin rag baatay ilmahaada ha inkirin iyagoo xalaal ahna xaaraan ha ka dhigin waayo hadda afkaadaynu kuu raacaynaa laakiin anugu waxaan aaminsanay gabar Soomaaliyeed inaad adiga xaaraan wax uga dhishid kaa yeelaysaa ma jirto laakiin nacas baatay si isku difaacana ma taqaanid dadka aad afka la galaysid kooda horno inaad horta bal fiirsatid waxyaabaha ay galaan iyo waxyaabaha ay gudaan dameer cali soobo aniga maahan iyo waaba haddii lagaa dhageystaba ninba hadda ka hor dhahay 114 aqaanaa waaba haddii lagaa dhageystaba waka waxyaabuhu ku qaraabto waxaa ka mid a war ninkan waa argagixiso waxyaabuhu ku qaraabto wakaade eega waka waxyaabuhu ku qaraabto wakaa uga meesha dadka meeshaad ku baadi jirta in la joogaad moodaa waryaad dameer calisow meesha dadka ku baadi jirta in la joogo miyaad moodaa ummadan meesha ku jirta qadiyaan bay halkaa bay kaa taagan yihiin qadiyaan bay kaa taagan yihiin habar gidir baa ugu badnaadaane oo aad magacooda ku ciyaaraysid habar gidir ninkan iska qabta war ninkan idin sheeganaye waxaasoo kale idinkama dhasho waxaan iska qabta waxaan iska qabta niyo sheekadii filmaantii gaaladoo noola yimid maraykanka markuu qofku duulayay maraykanka u dhahaa waa argagixiso waa hebelow waa kii waryaa aniga australian deganay yurubna waan imaanayaa markaan imaadana dee waad garanaysaa sida kaniisada loogu cararo nafsadayda halis bay ku jirtaa kaniisada iyo badbaadiya kaniisada waxmabaas ilaahay baa wax badbaadiya saqajaanow ilaahay baa wax badbaadiya waxaana dhan waxaad u samaynaysid waa in sharci lagu siiyo adiga iyo cunuga garaca ah ee aabihii iyo hooyadiiba inkiraan oo aanan meelna haysanin argagaxisho weeye hebelow weeye kii kale weeye kii nahidaas Soomaaliya kuma laaban karo waa la dilaya waxaanoo balaayo ah waxaad u samaynaysaa waa sharciga yar in lagu siiyo way haddana waxaanu godob guleynaa daahirow adduunka haddii isla joogana adduunkan haddii la wada joogo ilaan Yurub iyo Australia adduunka kaliya maahan wadankii waa la isku arkay wadankii markaa baynu xisaabta kala qaadan doonaa inta ka horeysa howlahan baan kuu soo bandhigayaa clipkaad hadda daawateenna isagoo dheelitiran dhammaystiran tafatiran editing lagu soo sameynayay wax walba laga soo naqshadeeyay gabadhii gurigan lahayd ee la dhacay la wareysanayo lala hadlayo oo maaragtay wax la weydiinayo su'aalaha iyadana sida ilaahay ugu og yahay bay ugu jawaabi doontaa baynu kuu soo wadnaa kusii bishaarayso ilaa iyo dowladda Soomaaliyana waynu gaarsiinay codadkana waynu u dirnay ninkan adiga aad maanta meeshan ku kashiftayna cid uu yahay anuu garan maayo I don't know dowladda inuu ku jirun baan ogay qalad loo soo geliyay waliba isagana wax idin kala dhaxeeyo ummadda Soomaaliyeed baa ka soo jawaabi doonta adoo taada halkaas aan kaga baxayaa every fucking day every single day episode adiga taada ku midan ku hayaa inta coday aan ka hayo ma ku tusiyaa ma aragta inta coday aan ka hayo let me show you inta coday aan ka hayo adiga kaliya inta cadeynay lagugu hayo inaan ku tusiyo way dameer calisow dameer kale jirin baa tahay ma aragta waxa meesha saaran oo idil waa adiga le wayaan videogiina away maya kada videogan ku tusin lahaa laakiin wallahi billahi tallahi dad yar baa ku jira waayeel baa ku jira intaasaan u naxayaa because aniga damiir baan leeyahay sharaf baan leeyahay cizi baan leeyahay karaam baan leeyahay akhlaaq baan leeyahay adigoo kale saaqid miihi adigoo kale damiirkiisa gadanaya miihi adigoo kale diintiisa ku ciyaaraya miihi adigoo kale qabiil aan ahayn sheeganayna miihi brother waxa kuma saqajaamo
waxyaabaha noocaana adiga haddaad iga hayn lahayd waxyaaba noocaana inkastoo inaan iga suurtoobin ba anugu oo aan gabar walba Soomaaliyeed sida walaashay kale ugu damqado waxyaabahana dee xataa haddaan waasho igama suurtoobaan waxyaabaha adiga kaa suurtooba waxyaabaha noocan halkan ku jira 1000 sano hadda dhiman igama suurtoobaan ilaahayna waa ka magan galayaa laakiin haddaad igu kaliftid inaan soo daayo uqsim billahi aan soo daynay waana dhaartay way iga dhacday dhaarta wallahi way iga dhacday dhaqan xumo dambe iyo nahiibay baratay iyo photoshop la sameeyo photoshop uu soo sameey gabadh buu madax ka soo gooyn waxbuu ku rakibay waxbuu isgelgelin waxbuu yeelyeeli aniga photoshop ma sameeyo reality-ga u tagaa tii maxamed carab baynu galeynaa marka diyuuskii maxamed carab ahaa isagana haddaynu galeynaa gartiisaynu galeynaa maxamed carabo adigoo dhahaya waa lay kufsaday briefing baa idin siinayaa adigoo dhahaya waa lay kufsaday waxaan soo maray maxay ahaydee waxaan soo maray Liibiya adigoo dhahaya carabta waa fataaliin dumarka uguma baxday ragay ugu baxdaan adigoo dhahaya ragay ugu baxdaayo habeenkii 3 iyo 4 baa isku kaamarmari jirta balaaya isku kaamarmartay oo balaaya isku kaamarmartay garacow balaaya isku kaamarmartay dhaqan xumada umada ka daa fawaaxishta umada ka daa waxyaabahan aad ka shaqeynaysa umada ka daa jabkii ku soo gaaray umada ka daa war Yurub mar lagu kala tagay waa imaatay walaal waynu daalnay maskaxdeenu ka daalnay hadda Yurub waagay wax yaaleen waagay wax jireen oo adduunka la wada iimaanayay ilaahay baa adiga ku gartay inaad soo rafaadid walaal ee gaajo indhaha ka soo saarto adduunka mar uu dhaqaaqay lagu kala tagay Yurub wax yaala hadda ma jiraan khalaas eber adduunku wuu isnacay ya ilaahay ku soo wado halkan ku keenay ilaahay markuu adiga Soomaaliya ka soo waday nabad buu na siiyay adiga iyo faraqa dameer caliso markaad wadankii ka soo baxdeen gacmaheena kor u taagnay alxamdulillaah nabad baa dhalatay madaxweynenu helnay nidaam baynu helnay dawlad baynu helnay Yurubti markaad imaateen Yurubti bay ka bilaabatay bal nasiib darrad idin haysata eega Yurubtaad imaateen yaad qarribteen qarax bambo suicide balaayo heblow alqaacida al-shabaab waxba qarxay war waxaan idinka idin daba socotaa adduunka haddii labadiina aad iskaga tagtaan oo ilaahay idin musaafuriyo adduunkan shuuba qaboobi lahaaba meesha tagtaanba kuleel baad la tagtaan ulul baad la tagtaan Soomaaliya waagaad joogteen way ololeysay ulul baa ka socday wal isdagaalay qabiil baa isku dagaalay maxaakiim baa isdagaalay al-shabaab baa isdagaalay hebel baa isdagaalay markaad ka soo baxdeen oo aad Kenya timid 2007 Kenya ka bilaabatay electionkoodii qabiil bay isku cuneen dambe iska dhigeen way isdhameeyeen balay agta ismariyeen Liibiya markaad soo gaarteen oo aad saxaraha soo mar rabteen nag bay iska dhigeen waka Liibiya dhameeyo taagneeday dawladda ahayd labadiina markaad soo gasheen dhulka ilaahay la gooyay iyagana Yurub markaad soo gasheen maalintaad soo gasheen buu qarax u bilowday Yurub bamba lagu bilaabay suicide baa lagu bilaabay balay tareen la qarxiyo bas ordaayo ku soo galo balaa warniyo labadan faraq waa arada ilaahay ba ku socota meeshay tagaan arha ku nasteen wakaas meeshay tagaan arwakaasi ha nasato Yurub ilaa labada iska musaafuriyaan oo ay wadankii hadii lagu celina dagaal baa dhacaya ilaa uquba haysata raggan arada ilaahay ba ku socota Guantanamo ilaa la geeyo adduunkan ma dagayo Guantanamo haddana ka bilaaban Guantanamo bay markii la geeyo yu haddana bilaaban jahligi iyo Guantanamo griiris aad arkaa haddana war iga saara kuwan niman yahow waxa qubada ilaahay way wallahi u fiirsada qofkii aqli uu fahmi karaa qofkii aqli leh wuu fahmi karaa wadankii markaa ka soo baxdeen nabad baa ka dhacday Kenya timaadeen dagaal baa ka dhacay 2007 waad ka soo baxdeen Liibiya dimaateen dagaal baa ka dhacay waa meesha lagu kufsaday Arabo garaco meesha lagu kufsaday way ee Arab isku ka marmareen codkiisii meey joog ada laga kari waayo joog laga kari waa nag diiday dambad u joogi wallahi magaca ku qornaa magaca hadaya ku qorta muxuu ahaa laga kari waa Yurub bay tagtay alqaacada waaye shabaab waaye ama tawar inta ku geynaysa oohinta waa xaytaa oohinta waa max oo daayir cala soo calaalka war ilaahay ka baq ilaahay adiga ka baq oo diinta ilaahay adiga u soo laabo oo ummadda ilaahay dhibka iyo dhibaatada iyo waxan aad ku wadid ka daa haddaad saad u calaacalaysid horta videogan adigay kaa suurtoodaa inaan public soo dhigo adiga hadda aniga ceebta weliba kuusii qarinaya 2000 daawatay iyo ku ekaan doontaa
waa haddii aad adiga ummadda soomaaliyeed ka fariisatid ilaahaada usoo laabatid dadnimadaada usoo laabatid damiirkaada usoo laabatid videogan ma soo boost garaynayo markaan endi dhaho ma soo gelinayo waan ka saarayaa ballan baan kaaga qaaday laakiin haddii aad kusii madax adeegtid iska daa videogana wixii xanaaqaya iyo wixii arkaya iyo wixii kaleba ha arkeene walle iyo bille videoganna waan soo gelin waana taqaanaa videogana hal mar kugu dulmaraya horta ummadan baan ka xishoonaya wallahi ummadan baan ka xishoonaya uqsim billah ummadan baan ka xishoonaya oo idinka xishoonaya mooyaane waxyaabaha qaar halkan ku jiro wallahi oo billah oo talaa damiirkiin idin ma siinayo inaad daawataan wallahi damiirkiin idin ma siinayo yacni waxaad ka soo qaadaan fawaaxishtii ugu dambeysay ka soo qaada fawaaxish meeshii ugu dambeysay ka soo qaada wallahi meesha buu taagan yahay yacni in other words markaan idiin fasiro oo xoogaha anoo dee nacab inaan idiin sheego waa isaga oo cabsan oo khamri ka dheragsan oo heese isaga uu qorqoray matag weeye matag isaga uu qorqoray la diyaarinayo sidii hooyadii ku dhashayna ah kuwa drug addict oo junkies ah oo foolxumada ka batayna ay ag jiijiifaan yacni waa wax foolxun calaa taxaal waa wax aad iyo aad u foolxun weeyaan waa foolxuntay foolxumo weeyaan waxyaaba uu sameynaya isagoo dhar wateenu qadyaan ka taagnayn oo lahayn ilaahayow waxaan uu mistaada way kuma dambaabi karnee si maaragtay dheh oo maaragtay ka daa laakiin ummadan islaameed baynu ka xishoonaynaa marka waxaa weeye aawe dameerkii kale ee dhahayay waa la isoo fuulay oo carabta rag kale ma jeclo kulahaa carabta rag kale ma jeclo oo adduunka waxay ugu jecel yihiin rag bay ugu jecel yihiin rag inay ugu jecel yihiin anima afkaada ka keenay balaaya kaa soo saartay balaaya kaa soo saartay ummadda islaameed inay idin duubayaan oo faraniigala qabanayo miyaad moogeedeen codkii maxaa ku dhacay faatixadu hoos ka akrinaya waa shaydaan wey sixiroolo ah balaayo hoos ka akrinaya ilaahu yuuna daarmin buu leeya waan daarayaa saaxib haddaayaba saanoo kale u daarmi waayo waana soo daaray haddana waan daaraya ama cuudu bileyso ama shaydaanka iska naar ama balaayo samee aday kuu tahalaadhe wallaahi billahi tallahi inaan daarayaa weliba niman yahow salaadiina waa la taagan yahay reer Australia way u jeedaan salaadii waa la taagan yahay salaadeedan dukanayaa cawaan cali sow dameer cali sow intaasaan kugu dhamaystirayaa saaxiib adiga kan kale kan ku xiga waxaa way may waa sheer garaynaya walaal kama daynaye abul shari wallahi billahi tallahi abul shari inaan sheer gareed igu ogtihiin ani igu daamida sharci baa ka yaala waan soo dhigayaa idinkana la sii wadaaga walaalihiin dayaxna mid baan u sheegayaa marka isagana dal nuursha noloshan adigaas kala saaxib dhalinyaraa tahay odayaashan qawaarada ahee ku dhali kara ee kaa weyn farmaajo kaa magac sarreeya oo kaa baawar badan oo madaxweynihii waddanka ah iyo iska daba laalaadin jireen dhegna umuu dhigi jireen horuuna uga sii socon jiray sheekadii farmaajo yaa dhammaatay oo farmaajo soo uga hadlay ummaddii soomaaliyeed way wada naceenoo youtube-kan 2 shilin loogu soo ridi jiray baa meesha ka baxday fahan wuxuu dhahay marka Soomaaliya yaa ugu shidanoo shacbiyad badan aan ku heli karaa iyo click iyo like badan dayaxdal nuursha ugu shidan baa la dhahaa walaal de inuu iska ka soo laalaadiyo irsaaqadiisa ilaahay halkaa geliyay ha ku daysanin maaragtay hawshaada ka wado eeyahan ha iska ciyaan waxba kaama gelin horay iskaga sii soco aduu ha u joojinin waxyaabaha qaar laakiin waa inaad ka xishootaa inkastoo da'daadan aad ku jirtid yani waxaa la dhalinyarada ninka yar intuu geed ka boodo yuu talena ka boodaa anugu talo walaalnimaan ku siinaya waxaa samaysay kugumana taageersani at the same time da'deedii baad ku jirtaa waqtigeedii baad taagan tahay yani haddaadan wax qaldin hadhow ma sixi kartid nin yar baa tahay nin mustaqbal la baa tahay nin future la baa tahay nin magac la baa tahay nin maamuus la baa tahay waxyaabaha aad samaysay absolutely kuguma taageersani qalad uu kaa dhacay qalad weeye saan dareemaya marka Soomaalida inteeda kale fiyowna way dareemi karaan
meesha xaflad ah saaxiibada u wactabay ahayd in kaamirad lagugu hayna maadan ogeyn xaaskaaga markaad keega afka u gelisayna dee guryaheena bay ku sameynaa obviously guryaheena bay ku sameynaa waxyaabaha Soomaalida ee ka hadlina waxyaabaha ka siifa waxish badan baa dhaca tan waa macdallahi waa xaaskaaga ooridaadi way jacaylkaaga way adduunkaadna tusaysa sad u jeceshay xaaskaaga Soomaalidan jaahiliinta xaasaskooda la dhuumanaya rag qaar oo xaasaskooda qarqarinaya waad ka fiicantay waana ka boqorantay ninka ugu horeeyay Soomaali ee xaaskiisa ku faanana waa adiga ee social media soo dhiga ee dhaha waka xaaskayga anuu na kala tabar uma hayo oo wixiisa cadaystay baatay marka waan kugu taageerayaa I support you ilaahay adiga iyo familkaada iyo gabartan quruxda badan ee ku dhalatayna caafimaad iyo cimri dheer ha idin siiyo cadowgan ilaahay ha ka qabto saaxib nin yaro dadaalaya tahay saaxib dadaalkaada hore u soco yani hamigaaga raac saaxib waa ninka kali diiday in la farxumayaatay dayaxdal nur show hadaad Yurub soo gali lahayd ama aad soo mari lahayd saxaraha ama Liibiya aad soo mari lahayd sida labadan fataal dawlo kufsan lahaa aduna ma haysi lahayn saacadan laakiin waxaad dheer tahay waa wadaninimada waa wadankaada aad ku iimaan qabtid waa wadankaada aad nal u noqotay waa ummadda Soomaaliyeed siiba dhalinyarada aad hormuud u noqotay weeyaan waxaanoo dambe iyo awaankaanoo dambe iyo meel uu taagan yahay iyo taleefanadiisa iyo waxan yani he is trying to look good on your image adiga hadduu ka hadlo ummadda Soomaaliyeed way daawanaysaa isaga waayo nin qiimo leh buu ka hadlayaa nin qadar mudan buu ka hadlayaa waa la daawanayaa marka laakiin mar haddii aadanba ka soo qaadin iyo mahor inta buu la egay xaas ma qabo oo caruurtii isaga u dhalay buu inkiriya oo waclo ku tilmaamaya aragtay oo hadda aad dhageysanaysay diinta Ilaahay buu u gafay oo halkan ku jirta oo aan doonaynin diinta Ilaahay qof u gafay hadaan faafiyo dambigeeda waxbaan ku lahaanaya ma doonayo damiir baan la Ilaahayna waan ka baqaya subhanahu wa ta'ala Ilaahay bay abuuray naar iyo jannana isaga inoo kala haya waana ka baqaya in cadaabtiisa galo ma ogoli Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha igan badbaadiyo jahannamo iyo agagaarkeeda waxa weeye marka walaal macaan adiga xaas baad leedahay awlaad baad haysataa kariye baad haysataa talent baad leedahay xoolaha adiga la soo baxa adiga ismaamula adiga ma aragtay meesha isku haya raganimada aad ku haysaa madaxdii Soomaaliyeed baad u raacdaa goboladooda aad ma aragtay ka soo farxisaa oo aad soo baashaashaa marka waxaan oo kala baraad arkaygiyo just ignore them saaxib ka dhac oo faraha ka qaad ha iska ciciyo ma aragtay wuxuu rabo ha sheego ma aragtay soo rabo ha u hadlo waa dameerka markuu qeeqeeyay maxaa lagu yaqaanaa haraanti baa fudud laga geliyaa meesha hadda haraantida fudud laga gelinayo lama joogo ninkan meesha fudud haraantida la iska gelinayo lama joogo intaa buu ogyahay mooyaane haddii la isfasaxi lahaa oo fasax la siin lahaa dee hawiyuuna caayeen daarood buuna caayeen dir buuna caayeen guri islaameed buuna xaaraan ku haysteen social media harakatada uu ku haystoona ku haysteen waxyaabo badan buuna samayn karin marka hadda wuxuu ogyahay dameer calisow inuu ma aragtay xoogaa yar oo ma aragtay maadaama uu dib sheegtay qaab markuu isdhiibayeen uu dhahay dee kufsin waa iska jiraayo bahdilaadna waa iska jirtaayo anigu yani saan baan ahayo waa liidanahayo meel ma haysto guryaha islaameed marka aan u soo laabano arrinka guryahan ama maanta laga soo celiyo ama biriha laga soo celiyo ama sanad dambe laga soo celiyo ballan Ilaahay waxaan ku qaadnaa inaad iska soo celisid ballan Ilaahay waxaan ku qaadnay in ma garanaysaa aad guriga iska soo celisid weeyaan waad soo celin qofkii lahaa xalaashiisa way u soo laaban doontaa dawladda Soomaaliya looga war fadhiyaa warkan oo tafatiran iyo codadkan oo clear ah oo nadiif ahna waa daawan doontaa waad ku raaxaysan doontaa intaan marka ceebtaada maanta intan ha kugu ekaato ceeb intan ha kugu ekaato intaanan faraha ka bixin hawshan oo aynan wixii la sheegayay mooryaanimadii iyo tuuganimadii iyo guriyihii islaameed aad haysatay daarood baax daarood xoliisiya ku xalaalay daarood uu dhiday maad u dhidid daaroodka markay wax baranayaan halkeed ku maqnay isbaarad baran jirtay sida loo dhigto miya isbaarad dhigan jirtay miya isbaaris loo dhigto baa taqaan markuu daaroodka wax baranayo guriyo tabcanayo guriyo gadgadanayay uu shaqo abuuranayay hawiyaha markuu wax baranayo uu guriyo tabcanayo uu beero sabcanayay adii halkeed ku maqnayd ma meelaha orphanage-kad ku jirtay miya meelaha wacilada lagu xanaanayd ku jirtay waa nin weyn baa tahay xisho oo iska dhiib guryaha islaameed oo ma aragtay iska soo celi guryaha islaameed dameer calas kii kalena dee garac ee xumaana adeerkii baa dhahay inaad garac tahay adeerkaa baa ku sheegay walaal anugu kumaana sheegin hana dambaajinano salaada aynu idinka dukanno marka wallah intaan kadib dee ragga haddaynu kusii wadno suusaarkii la sheegayay way isdilayaan wallah inay isdilaan bay gaarayaan marka waxa weeye wallahi nin dambe guri islaameed oo Soomaaliyeed inaanu xoog ku haysan
guri dambe oo islaameed inaanu xoog ku haysanin justification walbo la keenayo justification walbo la keenayo war u shargareeya una ku jira tusiina dhoocilka kala jiranee dhahaya maxaad wacel leedahay ilaahay ka cabso wacel maxaad ila maxam arab you watching saaxib you are ani kuma dhihin adeerkaa baa ku dhahay ani ma ku dhahay adeerkaa baa ku dhahay wacel tahay of course adeerkaa baa ku dhahay and I have to quote and I'm quoting waxaa la dhahay don't hate the message hate the messenger saaxib don't hate the messenger hate the message saaxib aniga wixii la isoo dhiibay adigaba ilaan propaganda faafsan Soomaa oo aad qadaadiic ka samaysaan oo aad shilimaad ka samaysaan oo aad ummadda ku rogteen oo aad wax walba ku qasteen oo ilmihii yaryaraa idinkaga fakan la'yihiin ilmihii yaryaraa idinka fakan la'yihiin xaasaskii la qabay waa idinka fakan la'yihiin too bad saaxib that's too bad war Soomaali Maxamed waa idin jeclaaya qaa idin salaamaya boqolkiiba boqol insha Allah part 2 habeen dambe la socda saacadan oo kale marka shaqada ka soo baxo part 2 habeen dambe dameer calisow ama luuq soo gal ama inbox soo gal saaxib tan way gashay brother way gashay mas waa ku deesay midan ma soo laabanayso insha Allah arab ku soo socda brother ku soo socda insha Allah Arab is coming soon arab garac way arab soo socda isagana hasugi waayina oo hadhareer waayina arab waxa laga soo deenayaa adeerkiisna waynu wareysan doonaa idinkoo maqlaya oo qadka ku jira live baan u wacaya numberkan ka wacay Soomaaliya idin tusinaya waad dhageysanaysaan taariikhdiisa kooban baan iliisoo gudbinayaa waxaa kaloo idin wacaya arab kuwa ay isla socdeen oo ay doonta isla saarnaayeen oo de life in action wax walba arkayna waan wacaya arabo afkiisa ka tuugsanaya oo dhahaya $20 igu filan maanta $20 ilaahayow hana gaarsiin $20 inaan baryootamo $20 $20 inaan baryootamo ilaahay ma gaarsiiyo ilaaha ka magan galay ilaahay subhanahu wa ta'ala waan ka magan galay shaqayso intaad farmaajo ku mashquulsan tahay oo aad khayr ku mashquulsan tahay oo aad hawiye ku mashquulsan tahay oo aad daarood ku mashquulsan tahay shaqayso saaxib saas wala dhididaa xoolahaada wala dhididaa usoo dhidid jeebka islaameed maxaa ku tusiyay jeebka ragga faaca maxaa ku tusiyay tuugsiga maxaad ka heshaa 20 shilin ee lagu soo tuuri jiray YouTube iyo balay aad ka sameyn jirtay ilaa dhuuntiba ku go'day halkaaba ku qallashay yaa ka go'ay hadda markaas cunuga miskiinka iyo xaaskiisa soo subhanallah warnimay insha Allah Soomaali Maxamed waan idin jeclahay mid kale idin ka dhaadhicinaya intaanan ka bixin wallahi aniga markaan dhahayo daahir ilmihiisi waan idin daar horta wad dhageysateen gabar isaga uu qabo kama wado oo gabar Soomaaliyeed uma gafayo mana aynayo mana iga istaahesho inaan ayna maahan laakiin isagii markuu dhaho cunugan aniga ma dhalin in waan soo qaatay kan kalena uu dhaho hooyadiis gaf iga dhacay baan ugu tagay ma gabadhan u gafay hadaa cunugiisa garac ku tilmaamo maya kuma tilmaamay uma gafin gabadha uma gafin gabadha hadduu xaraan kaga dhalay cunugan magac siiyay gabar ilma xaraan laga dhalay idinka magac siiyay kaas magac siiyay idinka kaas no way marka gabdhaha isaga wax kala dhaxeeyaanna waa gabdho walaalahay ah hooyadiis waa hooyadeen oo kale gabdhaha Soomaaliyeed isku siban u wada jecelnahay laakiin ninkan ilmuhu xalaash idin kaga dhalay inkiraya ee leh aniga ma dhalin you have to isaga waa inaad la xisaabtantaan ha ayaaniita waxay dhahday waa wicil sidoo adeer ku helay ayaan hadda kan raadinaya maxamed arab wuxuu wicil ku noqday sidan maxamed arab aabihiis waa la yaqaanaa okay ila soco marka waxa dhahda wicil adeer ma yeesho maxamed arab aabihiis inuu ninkan yahay waa la yaqaanaa wicilnimadan waxa weeye meherka qofka hadaanu ku dhalanin ee uu caloosha galo meherki oo aana dhicin ka hor fiiri meherki oo aana dhicin ka hor haduu cunuga caloosha galo oo uu dhasho saas wicil ku noqday wicilka ma ahan qof aanan aabihiis la aqoonin ma aabihii waa la yaqaanaa laakiin meher ma jirin labadii wiilkii gabadhii iskuma mehrinin that's how you become wicil that's the definition of wicil marka sa u faham wicilka macnihiisu waka anoo si kale uma wado aniga aqoon gooni u leeyahay ma jirtee adeerkiis aan idin wareysanayaa waan ku dhax adeerkiis aan wareysanayaayo waliba telefoonka ma wacay live kan soo gelinaya qof mobile wataan leeyahay mobileka u geeya ha loo geeyo marka waka daahirna wad maqlayseen haddaad maqlayseen idinkoo isagoo dhaxaya labada saddex weeye saddexdaba waan soo helay
saddexdan wiil afakaadho miya afakaadho meel taalo oo iska soo helay miya ilmaha afakaadho meel taalo geed afakaadho oo meel taalo iska soo helay miya ilmaha ma la iska soo helaa arrinta guriga marka arrinta guriga la meel ha soo saaro dameer calasow gurigaas kolley kor iyo hoos baa lagaa qaadaya ama sharaf ku bixi ama shantii tageede labadaas wax ka dhexeeya male xoog baa lagaaga qaadayaa meesha aad joogtidna waa lagugu dacwanayaa guri islaameed inaad xoog ku haysatid evidencegiina waa kana adigoo middleman ah oo gabadhan meelaha lacag kugu soo dirtayna way wada haysaa rasiidadeedii iyo kulli everything there's no other reason lacag kuu siisana maba jirtaba gurigaas baad niyadda u gelisay gurigiina waad ku booday annaka ilaahay noo soo saaray laakiin oo xaqa soomaalida soo bixin doona insha allah qof walboo soomaali ah oo guri laga haystana daahir calasow ama wax isaga ku heeraarsan la haysto bis qof kale ma haysto الحرام بلغو سكري غوري حرام بلغو سكري حرام بلغو سكري حرام بلا سو قودين جيري بلايا ku dhacday ninkii xalaash dhan boo loo diiday ma nin xalaash iska ilaalinaya xalaashu iska ilaaliya wallah xalaashu iska ilaaliya xalaashu iska ilaaliya araya xalaash iska ilaalinaysid xaaraanta iska ilaali xalaasha sidaad iska ilaalinaysid xaaraanta sidaas iska ilaali xaaraanta in la iska ilaaliyo mudan خياري وادي جعلها إن شاء الله فيديو قالنا every single person أتقنين قارسية سقاس عيبين ما نقع عيبين جماعة وادي جعلها والله إلهي درتيس لأجل في سبيل الله ظلمي كم أقولي قف ظلمي يا أقولي برنامج كن كرباش كن رياليتي البرنامج اللي كانين وفيه بالله إن شاء الله بوتو أنا يابي بوتو بدنا بسم الله الرحمن الرحيم داير على سوق ملبن صاحب ملبن إن شاء الله أصبرنا. السلام عليكم ورحمة الله خير وإن جعل الله يا والله بالألجون pray. Thank you very much.